aad baan naga xunaa wixii dhacay haddana waxaan leenahay walaalayaalow caanadaatay dabadooda la qabtaa tani waa dawlad ma garateen wax dawlad xilli degmada Beled Xaawo maalmihii ugu dambeeyay ay ka soo koobaneysay dagaaladii ka dhacayay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ka u dhaxeeyay ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ayaa waxaa maanta kulan isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka xoogga dalka oo uu hogaaminayay taliyaha hay'adda nabad sugidda Jubbaland Cabdirashiid Janan maamulka degmada saraakiisha ciidanka qalabka sida militariga booliska iyo nabad sugidda odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo dhammaan saraakiisha ciidamada iyo qaybihi kala duwanaa ee bulshada ayaa si adag uga hadlay muhiimadda nabadda ee in la xoojiyo amniga nabadgelyada iyo horumarka degmada xilli magaalada ay wajahaysay dagaalo ragaadiyay bulshada ku nool degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo waxaan leeyahay anaga nabad baan deeqdo nabadda aad wadaan waa soo dhaweynaynaa dadka halkaan ka tagay oo naga maqan dadkaas waxaan rabnaa haddaan odayaal lahay si qaas ah in loo dhimriyo jawi lagu wada hadla la helo dadku wax badan baa lagu shubay wax badan bay qabaan wax badan baa ka dhex guuxayo jaanis lagu wada hadlo oo lagu soo xareeyo oo lagu wada hadla in la helana madaxda noo timid waa ka codsanayna oo dadkaas loo dhimriyo wax badan baa halaysan oo hadda reerka meeshaan waliba qaasatan ka maqan wax badan baa ka halaysan waxaas in loo dhimriyo oo aan maxaan ku raalaga aan ku soo boodna aan la dhihin oo loo dhimriyo yaan madaxda noo timid ka codsanayna annagu haddaan odayaal nahayna horeyna nabadda waa ugu jirnay waan ugu shaqaynayna haddana kama daalayna waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka naga qaaliga ahaa haddana ah taliyaha amniga gobolkan Gedo ee Jubbaland saddexda gobol oo Jubbaland waxaan leenahay wasiir soo dhawow boqolkiiba boqol deegaankaagii dadkaagii oo ku jecel ku soo dhawow waxay shacabkan ku qasban yihiin ama madaxdooda ama dhaqankooda waxaan munkar ahayn oo aan xumaan ahayn oo ummaddan aysan dambi ka soo gaareen oo wanaaga cidda keenta inay taageerto hadday kuwa ka dambeeya keenaanna waa la taageeri adigoo maanta nala joogo wanaag lagu nasbaynaya inaad ka shaqaynaysana taageero weyn baan ku siinaynaa waa lagu taageeraya boqolkiiba boqol waxaan leenahay waa deegaankaagii dadkaagii waqti badan aad ka maqnayd horay waxaad ugu soo qabatayna waa la wada garanayaa maanta waan joognana xasilooni wanaagsan iyo nabad baan qabnaa intaa waxaan rabaa inaan idhaa wasiirka iyo raggiisa iyo saraakiishiisa anigu horta meeshii aan u qaylinayaan maraynaa oo aad baan ugu faraxsanahay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo aan wada naqaano oo soo shaqeeyay oo wiilkanagi ah oo ognahay muddo badan inay siyaasaddu dhibaato weyn oo culus ay ku haysay dagaankuna uu u baahnaa waxaan ku faraxsanahay waqti kastaba iska ahaatay inuu noo yimaado aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka xunnahay imaashihiisii asagoo intaas oo horumar ah oo hadda uu ka hadlayo oo kulligan aan u baahannahay oo amniga iyo horumarka iyo waxqabadka uu ka hadlay asagoo la socda oo kubaysan oo buuxa nasiib darro inaan maaragtay xabad lagu soo dhaweey aad baan naga xunnahay haddaan nahay shacabka maaragtay deegaanka aad baan naga xunnahay bacaadil dagaalkii waa dhacay waana ka xunnahay dad aan jecelnahay oo micno badan iyo qiimo badan noogu fadhiyay baa nooga dhintay laakiin xaqiiqatan gacantaan haddii adiga lagaa qabto oo cudur aan daawo lahayn kaaga dhaco xaqiiqatan waa la goynaa si jirkaan kale u badbaado ma iska haysanaynaa gacanta mise waa iska jaraynaa qofku hadduuna daawo lahayn waxaa waa la iska celinayaa adinkaa waxaad markhaati ku furaysaan geed dheer iyo geed gaaban inaad u fuusheen deegaankan inuu nabad helo walaaltinimo iyo xasilooni in lagu soo celiyo inay u waayeen awood ay idinku dhahaan waa idinla hadlaynaa sababtayta wax tale oo ka go'ay ma jirin مسؤول جبلان تليا قيبته أفرتني سدحات تليا أباندولها قيبته أفرتني سدحات يجود أهان سراكيش شكله معمول كدقمة أضياش دلنيرة هيوين كعلماء جناعستة بعض الصحافة عيدما الجسيا شغالة بكذا أديات بدو ما سنتي سلان كديب dhamaan bulshada qiimaha badan ee soo dhaweeyay taliyaha iyo saraakiisha kale aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta badan ee
kalgacayl kale aad u soo dhaweyseen taliyaha iyo saraakiisha kale runtii annagu 8 bilood baan isla sii joognay horaan u joognay waad ogtihiin dad waxaa tihiin aad dowladnimada u jecel waana idinkaga mahadcelinayaa taliye bulshadan kolley dabcan maanta aad hadday nasiib u yeeshaan inayba ku hor imaadaan adiga saraakiisha kale dareenkooda way ka hadleen wax fara badan oo aan haysanana way jiraan wax fara badan oo naga maqnaana way jiraan waxa farada badan oo naga maqan hal iyo laba haddaan ka taabto waxaa lumay garsoorkii waxaa loo cadaalad tegi jiray meelo meeshaan ahoo garas meeshaan ku yaallo duurka runtii maxkamadihii madaxawey doolowna hal magaalo inay isku noqdaan oo laamigan intuu doolow tago qofka koobka shaah u cabahay uu yidhaahdo hebelow isugu waa kuu imaanaya oo asagoo shaahii dhammaysanin uu doolow ka yimaadaan raba ama balaxaw ka tago doolow u tago taasaa talada iyadu ay tahay degmo nooga duwan ma jirto raas caseer iyo raas kamboni iyo inta u dhaxayso xadka goryaale baan rabnaa shacabka ku nool oo Soomaaliyeed in aan kalsoonina ay qaadaan madaxna aan u noqono marka erayada igu soo dhacdacayo ah garoonkan arintaas waxaan rabaa dadka ka hadlaya aqli saliima ma ahan garoonkan waa dhisaynaa waa la dhamaystir insha Allah Rahmaan waliba waxa u dhiman dawladda Soomaaliyeed baa ballan qaadi anaana ka qaadi Cabdirashiid hadii alle waxaan laga yaabaa baahida maanta shacabka aan u qabo ku ka badan inaan u qabo Aliyare xarunta degmada Balad Xaawo